muuqaal iyo weliba cod laga duubay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cadeynaya ama dhammaan mas'uuliyadda dusha ka saaraya in dawlad goboleedyada hore ula soo shaqeeyay madaxweyne Farmaajo ee taageersanaa fikirkii iyo xisbigii nabad iyo nolol sababta ku kalifisa haatan inay wadamo shisheeye soo horkacaan ama ay soo raacaan inay tahay sabab uu isagu ka dambeeyo codkan ayaanu daawadsi doonaa daawaday waxaan mar walba ka codsanaynaa ama ku xusuusinaynaa inaad barteena Facebook aan ku leenahay aad follow tiraahdo sidoo kale muuqaalada aad like saarto si dad badan u gaaraan sina share gareyso aad faafiso ka qayb qaadato faafintooda sidoo kale daawadeena sharafta loo muuqaalada YouTube ka waxaan ka codsanaynaa inaad like noo saarto si ay u sii faafaan sidoo kalena aad subscribe tiraahdo barteena YouTube ka gambaleelka afrato si warna uu ku seegin muuqaaladana aad sii share gareyso la wadaagto saaxiibadaada khilaaf u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadii hore u taabacsanaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya la soo shaqeeyay ee taabacsanaa dawladnimada Soomaaliya shantii sano ee xukuumadda nabad iyo nolol ka soo horjeeday in gabi ahaanba wadamo shisheeye ay soo farageliyaan dalkeena Soomaaliya kana doorbiday inay Nairobi iyo Dubai ay u boqolaan inay caasimadooda Soomaaliya wixii xal ay dawladnimo lagu la faguro halkaasna lagu yeesho shirar iyo kulamo sidoo kalena ka soo horjeeday tilaabooyinkii guracnaa ay qaadayeen maamul goboleedyadii Puntland hogaamiyaashoodii iyo Jubbaland Madoobe iyo Dani ayaa haatan wajahaya daawadayaal culays iyo sidoo kale cadaadis iyo dagaal kaga imaanaya dhanka dawladda dhexe federaalka oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaaday talaabooyin cadcad kuwaas oo aan innaba haleekaatee wax markaasi madmadooba uu ku jirin kuwaas oo ku muujinayo dagaalka uu kula jiro lafta green iyo qorqor xubnaha golaha wasiirada uu soo dhisay oo aan laga talagelin mas'uuliyiintan iyo xubno ayaga xasaasiyad ay ka qabeen ama ay ka dhaxaysay xurguf hore oo lagu soo daray xubnaha siyaasadeed ee golaha wasiirada si dagaal loogu qaado sidoo kale wadamo siyaasad iyo xulufaysi oo olog loola sameeyay si kooxahan looga taqaluso ama dhammaan madaxdii la soo shaqeysay nabad iyo nolol iyo talaabooyin kale oo laga qaaday saraakiishii la soo shaqeysay dawladda dhexe isla fikirka nabad iyo nolol aaminsanayd ayaa dhammaanba waxay daliil u yihiin weerarada kala gedisan ee lagu qaadayo maamulada koonfur galbeed iyo galmudug mas'uuliyiintooda duqa Muqdisho oo isagana loo maleynayo inay xaarid doonto ama xilkiisa ku doono si fudud iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga oo qaybtood hore xilalka looga xayoobiyay beegsi loogu daray sidoo kale mushaar dhimis loogu daray haddaba Xasan Sheekh Maxamuud ayaa nooga jawaabaya sababta ku kaliftay maamul goboleedyada gaar ahaan maamul goboleedka koonfur galbeed oo madaxweynahoodu uu booqasho rasmi ah ku joogo gudaha dalka Itoobiya isla markaana ilaa ay ra'iisul wasaaraha dalkaasi inuu la kulmay la soo warinayo sababta ku kaliftay in talaabo caynkaas uu qaado cid kale jawaabta ka sugimayno Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagu afkiisa uga jawaabaya waxa uu daawadayaal qiil been u sameynaya madaxdii dabadhelifyada oo ahaa shisheeyaha muddaxileedka madaxweyne Farmaajo aynu daawano codka kadibna aynu falanqeynta Ethiopia dagaal la galnay meel xunaan kala gaarnay ciidamada Ethiopia jibinay cadaawad badan dhaxday waa fogeynay bila gudahood saraakiishii ciidamada Ethiopianka jibiyay ayaa carraa xuduud ka gudbay Ethiopia magan galay Soomaali kale ka xaradayeen jacayl iyo caashaq Ethiopian u qabaan ugu matigin arrinta marka waxa waaye siyaasadeena arrimaha gudaha oo xumaatay ayaa keento faragelinta teeda qalloocan inay noo timaado Jubbaland wax aada iyo madaxdeeda ay ku leeyihiin ma leh ayadoo la eriyay loo geliyo Kenya ayuu cararayo oo naf bidayay tageen berrina kuwa kala laga yaabaa Ethiopia in naf bidaan maalinta kuwa kala laga yaabaa xuduudda ka Djibouti in naf bidaan maalinta kuwa meel ka sii fog in naf bidaan mas'uuliyadda madaxda dalka ay ku dhacay inay dalka isku hayso dadka siyaasadda ku jira isku hayso ee qabkooda marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu tilmaamo shakhsi dhagihiisa afkiisu ay maqal daawadayaal muuqaalkani waxa uu jeediyay marfog maahan 2021 ayuu ahaa waxa uu noo duur xulayay ama xiligaasi u hiilinayay madaxweynihii maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo uu sheegay in dawladda dhexe ee Soomaaliya cadaadis ay ku haysay darteed uu Kenya ugu galay taasi oo been ah Axmed Madoobe kiiskiisa iyo sidoo kale lafta green kiiskiisu way kala duwan yihiin haddii la eego dhanka Axmed Madoobe waa nin go'aansaday inuu sin Jubbaland meel nooga dhaqaaqin Kenyaankuna ay joogaan iyagoo markii hore sifa sharci darro ay ku soo galeen maalin aan raali ka ahayn inuu doorasho qabto xor iyo xalaal ah si markaasi Jubbaland uu u qabto hogaamiye kale ama uu isagu markaasi loo bedelo maadaama dhowr iyo 10 sano uu joogay muddaxileedka intii dastuurka ogolaana uu soo qaatay
taa beddelkeeda Cabdicasiis Laftagareen waa nin loo dulminayo ama loo maagayo maxaad madaxweyne farmaajo la soo shaqeysay dowladnimada Soomaaliya ula soo hogaansatay markii dalkeenu qasaynay badbaado qaran ay sameeynay markii Kismaayo aynu ka degaynay ee maamul sharci darro xaaraana aynu markaasi khasab ku meel marinaynay ee intaas oo dulmiye sameeynay Muqdisho gudaheeda xabad ka ridaynay ee Imaaraadka u dhoofeenay Nairobi ee aynu u soo basaasaynay wixii aan dalka ka kharabnay maxaad waqtigaas noola shaqeeysay oo la shaqeysay dowladda dhexe inta lagu haysto intaas oo kaliya weeyaan haddaba daawadayaal sababta aynu Laftagareen u taageerino haatan inagoo ogsoon in dhawaan dowladda Itoobiya duulaan ay ku qaadeen kooxda Damujadiid duulaan kaligood ay niyeysteen ay ku qaadeen maadaama daawadayaal ay Masar u soo raaceen sidoo kalena aynu ogsoonahay dhawaan in Soomaali galbeed lagu qaaday weeraro culus Laftagareen danaha la dagaalanka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyo Koortaga marka laga yimaado uu kala arinsanayo sidoo kale daawadayaal deegaanada loola xoray lahaa iyo sidoo kale in culays la soo saaray laftigiisa maadaama kooxo argagixisada Al-Shabaab hore uga tirsanaa si fiican uga bixin Robo Musturi rag kale ka mid yihiin lagu soo dhisay markaasi wasiir TikTok lagu soo dhisay Laftagareen si ay uga takhalusaan waxa uu diiday malaha Laftagareen inuu isaguna oo garab markaasi iyo gaashaan dowlad deegaanka Soomaali galbeed iyo sidoo kale Abiy Ahmed uu ka helayo intaba uu la wadaago maadaama haatan isku duruuf ay yihiin وقتها داود arrinta kale xasaasiga ayaa waxay tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu qaaday talaabaan wanaagsan xafiiskiisa ayuu ku qaabilay maalin ka hor daawadayaal dajirihii Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya Lucas Tumbo kaasoo dhibaato culus ku hayay dalkeena Soomaaliya basaas aad u weyn ayuu ahaa waxa uu kulamo gooniya la yeelay jiray Axmed Madoobe iyo ragga kale ee markaasi kharabudaada waddanka ka shaqeynaya kooxda xalalna ku jirtay marka qaarkood isla agaasimi jireen falal ka dhan ah amniga iyo xasiloonida Soomaaliya mar ayaa dalkeena laga ceeriyay oo inaan waddanka looga baahnayn si ku meel gaar ah loo siiyay inkastoo markii dambe la soo celiyay danjire Lucas Tumbo oo macsalaameeyay muddadii shaqada ugu qaabilsanaa dowladda Kenya dalkeena Soomaaliya basaaskan aad ku weyn ayaa madaxweyne Xasan xafiiskiisa ku sii macsalaameeyay laakiin waxa la yaaba inuu u sii xiray cimaamad iyo koofi walow qaybta xiritaanka la qariyo haddana ay sheegeen inuu hidaha Soomaaliya ninkan jeclaa sababtaasna loo siiyay sida ay baahiyeen xafiiska madaxweynaha dadka Soomaaliya ilaa iyo hadda waxay la yaaban yihiin in dowladda Itoobiya oo ammaan gelisay isla markaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed siyaasad ka duwan TPLF ula yimid in la leeyahay waa cadow iyo waa shisheeye aynu ku duulno iyo waa sidaan iyo dalkeena soo galeen iyo halkaan ka baxeen Kenya loo ka waxay nagu samaysay duqeymihii badii ay wili nagu haysato qaad ay noo soo dhufisay dulnimo ay nabaday in loogu daro in cimaamad iyo koofi loo xiro waliba la sii amaano cilaaqaad wanaagsan la yeesho waa dhaqan ay la yimaadeen kooxda Damujadiid iyagu ha is waafajiyaan waxa wanaagsan iyo waxa xun shacabka Soomaaliyeed way ogyihiin dadku indhaha ma lahan Kenya haatan noo walaal Ethiopia haatan cadow noo ah waa la ogaanayaa daawadayaal halka ay geyso maartay dibadda iyo Jarmalka iyo meelo maartaa in loo qaado tabarna aan la haynin muslimiinta ma maqlayso ee dhigteeda ku dhacay aan ka codsanaynaa gabadha walaasheen miskiinta inay noo saacideeyaan oo maartaa lambaraha shaashada loo saari doono ay arki doonaan ee ugu soo diraan sifa maartaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilmaheeda yaryarka ee carruurta gacanta ku haysata ay ku korsato in oo khidmayso nabarka asayna maarta idaabo ugu hesho aan ka codsanaynaa si naxariis leh بسم الله Soomaaliya wada salaamay daawadayaal fadlan qofkii muumin Sheekh Cabdul Qaadir wax ku soo dhaqaysanay waxna u diraya lambarka shaashada ku qoran hoose ee Kenyaanka ah xiriyaha qotiga dhaabay ay ku sugan tahay magaceeda ugu hagaaji lambarkaasna inbeesaan ugu dir qofkii kalena lambarka hormuudka magaalada Kismaayo ayuu yaalaa wixii awood u dira daawadayaal hadda kor ayaan caawinay lacag 7,000 kaliya waxa uu tiri weysay process dibadda aan u socdaa fadlan ka